السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سودوادا ملكستو عدلنا كجوكتان كنا سودوادا وربحيندي قدام بيي عيارها صاحبيال waxaan isu gudbin doonaa horyaalka liigaha iyo horyaalka Premier League ciyaaryahanada iyo tababarayaasha bishii la soo dhaafay ee September ku guuleystay xidiga horyaalka Premier League ama kan liigaha ayaa saaxiibana isu gudbin doonaa xidiga waaweyn iyo tababarayaal waaweyn oo ka soo muuqday ayaa saaxiibada diiradda saari doonaa haddii ay tahay saaxiib ku cusub barteenan fadlan subscribe noo saar like iyo share ugu dhiirigeli haddii aad nagala socotid Facebook page waxaan ka codsanaa follow gareysid waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga saaxiibayaal waxa ognahay horyaalka Premier League iyo liigaha inuu yahay labada horyaal ee adduunka ama dhammaan qaarada Yurub oo dhan ugu fiican ama lagu daawashada badan yahay inuu yahay labadan horyaal waxaana jira tababarayaal iyo xidiga waaweyn ee ka soo muuqday xidigaha bishii September ee la soo dhaafay ku guuleystay xidiga ugu fiican horyaalka liigaha iyo kan Premier League ba saaxiibayaal waxa horyaalka Premier League aan ku bilaabi doono isku haysta xidiga lagu magacaabo Marcus Rashford oo wacdara soo dhigay kulmada ay dhashay kooxda kubadda cagta Manchester United iyo laacibka kooxda kubadda cagta Manchester City waa laacibka la qaban lahayd sanadkan waxba laga qaban lahayd Erling Haaland oo dhawaangal ku ah kooxda kubadda cagta Manchester City marka saaxiibayaal waxa muudaysaa inay yihiin laba xidig oo qalma inuu ku guuleysto xidig ugu fiicnaa bishii September horyaalka Premier League marka xidigahan waxa muudaysaa inay challenge sameynayaan waxa kaloo saaxiibayaal xidigahan ay yihiin xidigihii bishii la soo dhaafay wacdara soo dhigay maadaama ognahay laacibka lagu magacaabo Rashford inuu soo kala diray kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee Arsenal markaas uu ka dhashay 2 gool halka mid kale uu ku caawiyay uu soo kala diray waxa ognahay kooxda Liverpool oo kale inuu gool ka dhashay ayaan ognahay laacibkan lagu magacaabo Marcus Rashford bishii Septemberna wax weyn ayuu u soo qabtay kooxda uu ciyaaro ee Manchester United halka laacibka lagu magacaabo Erling Haaland uu yahay laacib aanan macnaha leeshiisa aan la sheegi karin maadaama wax badan uu ka sameeyay horyaalka Premier League sanadkan score cusubna uu dhigtay maadaama 7 gool ugu horeysay uu dhashay 11 gool laacibka lagu magacaabo Erling Haaland ee ka ciyaara ninka naadiga Manchester City marka saaxiib waxa muudaysaa labadan laacib inay yihiin laba laacib u qalba sida Erling Haaland waxuu soo bandhigay bishii September waxa laga filan karay ama waxa laga qaban karo iyo wax la faaqidi karo ma ahayn ninkan inaba caadi ma ahayn xaqiiqdii qofka xaqraad ma fiicna mood qofka wuxuu samaysto qofka wuxuu u qalmo xaqirin walaalka xaqirin marka Erling Haaland waxa uu ka samaysay Premier League sanadkan asagoo ku cusub waxa macnaha qof xaqiri karo ama qof aan dah saari karo ma ahan laacibkan waa laacibkan waa haliyay laacibkan wax laga ma qaban karo laacibka lagu magacaabo Erling Haaland ee Manchester City ka soo gatay Borussia Dortmund wuxuu hadda sii mariyaa 12 gool horyaalka Premier League asaga kabta hogaaminaya sanadkan waxa la filayaa in laacibkan lagu magacaabo Haaland uu ku qaadi doono kabta horyaalka Premier League gool kor u dhaafaya 50 gool haddii uusan 40 milyan 50 ayuu dhalinayaa laacibka lagu magacaabo Erling marka saaxiibayaal waxaad moodaysaa labadan laacib inay yihiin laba laacib oo aad iyo aad isku xifaalteynaya derby Manchester United ee Manchester City ay la leeyahay hadda isbuucan dhexdiisa bilowga horyaalka Premier League oo dib loo milicsan doono saaxiibayaal marka labadan laacib kii lagu dhawaaqaba harumaysan marka Rashford iyo labadan laacib isku haysta isku garbinaya marka waxaad moodaysaa inay yihiin labadan laacib u qalma inay midkood la siiyo laacibkii ugu fiicnaa bishii September ee horyaalka Premier League marka saaxiibayaal waxa ay doonaan halkaas liigana sidaas lacaligeed waxa isku haysta laba laacib oo waaweyn oo bishii la soo dhaafay wax weyn soo bandhigay laacibka lagu magacaabo Lewandowski oo u dheela kooxda kubadda cagta Barcelona iyo laacibka lagu magacaabo Valverde oo u ciyaara khadka dhexe iyo boss walba naadiga Real Madrid marka waxa muudaysaa labadan laacib inay yihiin laba laacib oo aad u fiican maadaama la ogaa in kulmadii ay soo dheeleen labadooda naadi ee horyaalka liigaha ay wax badan soo sameeyeen waxaan ognahay laacibkan lagu magacaabo Valverde inuu yahay laacib caawiya raacasho badan laacib gool dhalin waxa deertaan wuxuu ku darsaday gool dhalin tabaraha wixii intaan Real Madrid Ancelotti wixii intaan haddii Valverde sanadkan aadan 10 gool aad dhalin buu yiri
aniga ciyaaraha waa iska tagaabiyey Real Madrid waa iska tagaabiyey shaqada ku ciyaaraysaa biyey sanadkan waa 10 gool horyaalka waa champion ma ahan qof kale ma ahan horyaalka la liga waa inaad 10 gool wax ka badan dhalisaa biyey ya tabara Real Madrid asadaya Valverde marka waa laacib meel walba macnaha ka ciyaari kara horyaalka Spainna ila ligahana shaaciyay xidigaha ugu fiican bisha September dhamaan ah marka waxaan ku guuleysan laacibada Real Madrid ugu ciyaar khadka dhexe garabka midig ee Valverde oo abaalmarintan ku garaacay Roberto Lewandowski oo la sii sheegay waxa la yiri laacibka lagu magacaabo Valverde waxa uu garaacay laacibka lagu magacaabo Roberto Lewandowski bishii hore ee August ku guuleystay marka waa bishii hore laga hadlayaa bishii hore waxa ognaay inuu Valverde soo qaaday bishan waa cajiya wariga ninkaas la yaab ninka cunugaas Uruguay u dheela inaba caadi ma sanadka wuxuu sawdo iyo dabarada weyn marka laacibkan waa laacib macnaha inaan caadi ahayn Valverde waxa leenahay Valverde sanadkan wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto laacib ku fiican horyaalka ligaha oo dhan maadaama sanad walba la qabto xidiga ugu fiican horyaal walba marka Valverde waa xidig aad u fiican xaqiiqdii lama xaqiri karo Roberto Lewandowski maadaama uu yahay laacibka Chile ama riixaya nadiga Barcelona ee ku dhashay garoonka Camp Nou وسانكان ku cusub yahay marka saaxiibayaal wararkeena inkasta aan ku soo gabeynaa wixii war ah aad ku soo kordha ciyaaraha halkan ayaa kala socon doontaa saaxiib waan ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga